السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد السلام ولا الله الصومال ميل باكو نوشين وكداوان سوى سودو هذا لبانتينا وعيد مد السلام ولا الله قيمة إيش رفت قايه و يعني محير هذا وحن سلام يا لما ناسية لما أنتي وعيد مد السلام يا ولا الله عندك محير واتساب كجرة ما شاء الله ولا الله وحن ربا إن وانا ريمان إن إيش واتساب وحن سوى إيماني إن أنا وحكلا فايدة السنة وحن وو إيماني إن أي تهاي YouTube waa badan yahay is everywhere yala laakiin waxa waaye aniga maxaa iraahdaa YouTube-kayga waxyaalo badan English aan lahayn aan ahayn ayaa ku jira marka aniga ma ku soo daro ma idin soo diro sababtoo ah danta ay idinka leeyahay waxa weeye inaad Ingiriiska kaliya aad focus aad saartaan ma garatay marka idinkana ma raba in aad wax soo dirtaan Ingiriiska aadan ka baxsanin inaad meesha ku soo xoortaan aad keentaan raalli kama nihin hana yeelina dhowr jeerna waa la idin sheegay dadkiina cusub waxba ha soo dhigina meesha waxaad isugu timaadeen only luqad inaad kala faa'iidaystaan inaad isugu hadashaan Ingiriis ku wada qortaan in maxaa iraahdaa aad ku wada hadashaan ayaad u timaadeen walaalayaal waqti ha iska dhuminin qofkii waqti raba inuu iska dhumiyo dadka u imaad please meesha inaad ku jirtid ma ina meesha ka baxdaa ma gartay dadka waxa ku soo tuurayna meesha ka daaya ha ka qasina dadka meesha u jooga raba inay wax bartaan ka daaya aad qasaysiin ka daaya walaa hadda kadib qofka wax soo tuuray aan arkaa waan ka bixinaya ogaada Chinese aan ku siinaya ka saarba haddaad ka saari weys waan ka bixinaya liiska ma garatay respect ayaa la isugu yimid meesha wanaag baa istum waa inaad isdowrtaan qofka kale waa inuu ku xadgudbin waa inaad is ilaalisan walaa ma garateen marka waxaan idin ka codsanayaa wanaagina sharaftiina ayaa inaad sidaas ku sii wadeen ayaan rajaynayaa marka walaalayaal qofkii u baahan in lagu walaalayaal waqti ayaa iga dhuma in aan raadiyo numberadiina aan saxo numberadiina soo saxa please numberadiina soo so many time ayaan geliyaa waqtiga number zaid ku soo dartaan ama number baa ka maqan marka walaalayaal waqtigaygana qiimeeya kiinana aan qiimeeyo marka waxaad yeeshaan soo saxa numberkiina soo saxan meesha keena si aan ugu daro oo waqti inooga dhumin aad waqtiga wax idin bari lahaa aad ka faa'iidaystaan insha Allah marka waana mahadsantihiin dhammaan dadkiina commentiga wanaagsan ii soo bixi walaal aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin marka insha Allah sidaan idin sheegay xalay preposition waa wax tiro badan ma garatay oo aan ahayn laakiin oo isma dhaysid halkan ugu soo hagaagay ma waxaad ku baranaysaa marood wax akhrisid mooraad dhageysatid carabkaaga ayaa baranaya carabki waxaad arkaysaa isagoo la qabsada ayaa arkaysaa ma garatay marka waa aad ayuu isu bedelaa marka halkan haddaad fiiriso halkan haddaad u fiirsato preposition aan caawan ka hadlayno waa time waa waqti iyo saacad markasta waqti iyo saacad baan ka hadlaynaa bes marka waxyaalo badan ayuu leeyahay location ayuu leeyahay meel xaafad location waxa weeyaan xaafad ama meel ownership waa lahaansho ma garatay marka waxa weeyaan aad ayuu u badan yahay direction waa tilmaan marka meel lagu tilmaamay waa direction ma garatay also direction ma ka hadlaynaa waxa kaliya aan focus aan saarayna caawa time waqtiga preposition oo time aan isticmaalin ayaan caawa focus aan saarayna insha Allah ogaada ma fahanti preposition intan hadda uu ka sii badan yahay ma garatay laakiin the main ma aragtay direction waa tilmaan time waa waqti ama saacad location waa meel ama xaafad ownership waa lahaansho ma garatay marka insha Allah let's focus on marka usually marka time aan ku cabirayna waxa lagu cabiraa on at in since during for ayaa lagu cabiraa ma garatay marka waxaana haddaan hal kugu micneeyo marka sentence ku jiro micne waxa laga yaabaa inuu ka duwanaado ma garatay since waxaan oo dhan saacad ayaa lagu isticmaalaa waqti ayaa lagu isticmaalaa time waqti ayaa lagu isticmaalaa ma fahantay marka waqti wuxuu noqon karaa maxaa iraahdaa maalin waqti noqon karaa ma kastay waqti lagu cabiro dhan aan ayuu noqon karaa markaan fiirin halkan Layla is arriving on February 14 at night marka this waxa weeyaan waa preposition this waa preposition laakiin marka sentence laga cabirayo preposition waxa lagu cabiraa ereyga on meeshu ka bilaabo ilaa uu ka dhamaado waxaa loo cabiraa as a preposition
maaragtay ereyga preposition meeshuu ka bilowdo ilaa aad ka gaaraysa the end of it inta badan most of the time waxaa loo cabiraa as preposition hadhow markaa barataan inay prepositionka aad kala qaybisaan oo soo kale Layla waa noun ma garatay waa subject ayaa leedahay is wuxuu noqonayaa verbka this main verb ayuu noqonaya marka dhow waxaan noqonaya inaad kala saartaan kan aad tira subject waay this verbki waay this waxa weeyaan main verbki weeyaan this preposition marka halaha dhan hadhow waxaad u xariiqaysaa wuxuu noqonayaa preposition uu noqonaya marka waxaa la phrasal prepositional ayaa la dhahaa ma garatay laakiin hadda confuse ku noqonaysaan all of that you don't need la ogaato uma baanin laakiin waxaad ka focus only on at those mafahmino markaad isticmaalaysa February 14 on waxaa loo isticmaalay February 14 waa maalin cayiman aad og tahay ma garatay waa maalin haddaad February 14 lagu dhihi lahayn wuxuu noqon lahaa in okay February waa bil waa 28 or 30 days of bill markaad qofka inuu dhaa maadaama dhexdeeda laakiin in February that mean February waa 30 maalmood ama 28 waxay noqoto marka waa in laga cabira intaas maalin dhexdeed waa inaan ka cabirtaa marka hadda on waxaan oga dhignay maadaama la og yahay maalinta exactly ay tahay taas waa inaan on ka dhigtaa ma garatay at night habeenkii at night waa habeenkii ma garatay at habeenkii waxaa loo isticmaalaa at night aad leedahay sometimes waxaad in the morning in the night xataa also waa la arkaya insha allah way jirtaa marka depends meeshuu ku jiro maaragta ayaa kala bedeli karta halkan Layla is arriving waxay imaanaysaa on February 14 bisha Febraayo 14 at night habeenka ayay imaanaysaa halkan the weather is often hot in Somalia in March marka halkan haddaad fiirisaan maaragta in March waa inta waxa waaye waa time waxa weeyaan waa preposition right and halkan in Somalia also preposition waaye laakiin maadaama aan anaga u focus garaynin oo this waa location ma kaste so ma baranayno location meel ama xaafad ma ku barooyo prepositionkaas laakiin markii aan ku barayo xaafad in Somalia wuxuu noqonayaa preposition uu soo galayaa laakiin hadda you are not learning this I don't want to confuse marab inaan confuse ka dhigo oo inaan ku qasamo rabo so I wanted to know just waxaan u focus garaynaynaa only aan ka hadlaynaa kan maxay raad waqtiga timeka aan ku hadlaynaa maanta so here so waxaad arkaysaan colorkan maarta maadaama markuu halkan preposition ka bilaabo waxa ku xiga dhan wuxuu noqonayaa preposition saa ogaada maadaama aan hadda colorkii aan ka bedelay waxaan rabaa inaad fahamtaan prepositionka meeshuu ka bilaabanayo on at ma garatay marka insha allah later on waan baran doonaa haddii la yiraahdo so the weather is often hawada inta badan the weather is often hot hawada inta badan waa kuleel in Somalia in March in waxaa loo dhahay in Somalia dhexdeeda hadda in March waxaa bisha March oo dhan ma fahanta waa kuleel Somalia so preposition here this preposition of location in fact and this is preposition of time kan waa meel and kan waa waqti saas ogaada she graduated from university in 2015 waxay ka guulaysatay oo dhammaysatay ama ku baramoostay jaamacadeeda ay ka qalin jibisay af Soomaali barbi ka qalin jibisay waxay ka qalin jibisay jaamacadda in 2015 dam 2010 dhexdeeda ayay ka qalin jibisay ayaa laga wadaa jaamacadda ma fahant waa waqti la hadlay in time waqti baa laga hadlaya insha Allah so this one is waa preposition hadhow markaad sentence ahaan lagu weydiiyo preposition halkan meeshuu ka bilaawda iyo qaybta ilaa iyo full stopka aad ka gaaraysa preposition ayuu isku noqonayaa Abdi usually visit Somalia in the summer Abdi inta badan wuxuu visit gareeyaa Somalia in the summer waqtiga summerka Abdi usually visit Somalia in the summer Abdi inta badan Somalia ayuu fasax ku aadaa waqtiga oo summerka marka in preposition waqti ah marka halkan laga bilaabo ilaa halkan preposition of time ayuu isku noqonayaa magarata marka ogaada preposition this way laakiin wixii ka dambeeyo dhan
maadaama uu preposition laga hadlaay wuxuu la noqdaa preposition ayuu la noqdaa ogaada insha allah he got married in March wuxuu uu guursaday in March in waa 30 waa 30 maalmood March oo 30 whatever it is so waa isla waqti badan weeyaan here in summer that means summerka waxa weeyaan hal beri ma aha just it's not like one day it's like way badan tahay ma fahan so saak wax markuu weyn yahay badan yahay in aa ka cabiraysaa insha allah he got married in March so ma naqaana maalinta uu yahay haddaan garan lahayn maalinta March uu ka guursado waxaan dhihi lahayn on maalintaan xisaabina maadaama hadda maalinta aan ka garanaynin in March waa inaan dhahna so wuxuu guursaday in March isaga wuxuu guursaday March gudaheeda ayuu guursaday ma ka garanaynin maalinta uu guursaday it is better to get taxi if you are out alone at night it is better to get taxi waxaa fiican inaad taxi qaadato if you are out alone haddaad banaanka joogto habeenki if you are alone haddii aad kaligaa tahay maanaha if you are out alone that means haddaad kaligaa banaanka joogtid at night habeenkii waxaa lagu yiri it is better waxaa fiican to get taxi inaad taxi qaadatid if you haddii aad tahay are out banaanka alone kaliga at night habeenkii that means taxi inaad qaadataa ku fiican haddii aad habeenkii kaliga aad banaanka aad joogto inaad taxi qaadataa ku fiican make sure taxiga inuu taxi qof la yaqaan inuu yahay ma garat special haddaad haween tahay any taxi ma qaadan kartid ma garatay marka insha allah marka saas ayaa laga wadaa halkan at night waa habeenkii at night ma garatay so waxaa lagu xisaabaa at night wino waxaan ognaa inuu habeen yahay at night ma garatay habeenkii waa hal habeen at night marka inta it's been raining since this morning that means it's been raining since macnaa subaxda laga soo bilaabo roobku uu da'ay it's been raining waxa qiiq ayaa idinku dil walaal ka raali ahaada ma garateen sababtoo ay waxa weeyaan headphone macnaha telefonkii baan dhagaha gashanaa ma aragtay mid cusub weli ma soo iibsanay marka waxa weeyaan I'm just recording codkay waa open ma fahad marka qiiq wax walba inii yeer marka ka raali ahaada guys so it's been raining since means laga soo bilaabo subaxani roob baa da'ay it's been raining since laga subaxi since this morning subaxan haddaan ku it's been raining since this morning daami ilaa hadda roobku da'aya daami roobku wuxuu soo bilaabay subaxna ayuu soo bilaabay ilaa ay hadduu da'aya ma garata soo ma dhammaanin weli it's been raining since subaxa laga soo bilaabay ilaa bacad roob baa da'ay daami roobka weli wuu da'aya roobka weli waa da'aya waa taas I've been living here since 2010 I have been living here since 2000 aniga halkan waxaan ku noolaa ilaa 2010 that means halkan aan joogo waxa laga wadaa waxaan joogo ilaa 2010 that means 2010 ki laga soo bilaabo ilaa hadda waan joogaa that means I have been here halkan waxaan joogay laga soo bilaabo 2010kii ilaa hadda ayaan joogaa ayaa laga wadaa welina waan joogaa ma garateen marka sinis waxaa lagu xisaabiyaa waqti ayaa lagu xisaabiyaa waqti waa maxay subaxdii ilaa iyo hadda roob baa da'ay waqtiga halkan waa maxay 2010 laga soo bilaabo sanadka ilaa iyo hadda waa waqti ma garateen marka it rained marka roob ayaa da'ay during the night waqtiga habeenkii during the night for 2 hours that means this wuxuu ku cabirayaa in 2 saac gudaheeda uu roob da'ay rain daami roobkan wuu dhammaaday idii waa baas daami roobka wuu dhammaaday ma garatay but habeenkii xalay 2 saac gudahood ayaa roob da'ay it rained roob ayaa da'ay during waqtigii the night oo xalay habeenkii the night means the xalay for 2 nights no the night
habeenkii it could be xalay mafahante the night for macnaha habeenkii for 2 hours 2 saacadood roob ayaa da'ay rain that means roobka hadda wuu dhamaaday roob ma da'aya hataa that means xalay 2 saac gudahooda 2 saac oo dhan roob baa da'aya during waqtiga 2 saac roob ayaa da'aya hadda ma da'aya maya wuu dhamaaday waa da rain that means past tense goor roob waa dham hadka mujada ing here raining that means since that means roobka weli wuu da'aya roobka saaqay soo bilowday ilaa ay hadda ayuu da'aya ma garata marka saa u ogaada halka mujada I have been living you guys know living ing ma garata that means laga soo bilaabo waqtigaasi 2000 ilaa ay hadda still intaan deganahay wayaan meesha baad ku nooshaa ma garata saa u ogaada it rained roob baa da'ay during waqtigii the night habeenku ay ahayd for 2 hours 2 saacadood roob ayaa da'ay xalay waa saas oo kale I'm not saying last night maaha habeen ayaa ma lagu dhihin last night laguma dhihin habeen laakiin habeenkii habeen tagay waay oo lasoo dhaafay I stayed waxaan joogay with them ayaga for 3 weeks waxaan ayaga la joogay 3 week oo 3 sitimaan ayaan ayaga la joogay hadda maan la joogaa maya laakiin waan la jooga wax dhamaadoo tagay I stayed with them waxaan ayaga la joogay for 3 weeks 3 week 3 sitimaan ayaan ayaga la joogay ma garateen yeah marka I think kugu soo celi casharka easy maaha waa difficult wayaan ma garatay preposition sideeda way dhib badan tahay ma garatay dad badan haddii aadan ahayn qof ku dhalatay aniga hadda Soomaaliya ku soo dhashay si walba ma aragtaa qof Soomaali ah hadduu yimaado wuu qalqaldaya ma garatay marka laakiin anu markaan maqlo waan dareemayaa oo meesha waxbaa ka qaldan laakiin annaga haddaana ku dhalan always qaladan suubinaynaa ma garatay dadka ku dhashay laakiin inta sharciyada iyagoon garanayn laakiin waa hadalkoodii ma garatay way garanayaan ma garatay wixii waxa daad qalad way ku soo saarayaan laakiin adiga waxaa laga yaabaa inaan garawe wixii inaan sharci raadin oo baranno wayaan waqti ayuu qaadanaya marka haddaad qalado don't worry about it as long as qofka aad la haysto uu ku fahmaayo wax moor akhri ku noqo carabkaaga baranaya marka dhawaaqays markan oo is dhagaysanaysa waa dareemaysaa inaa qaldan waxaana idin sheega isduubaan codkaaga duub soo idinma dhihin dhowr jeer haa adigoo aad u akhrinayo isduub dhagayso marka dam carabkaagu jilcaya wixii waxaad arkaysaa adigoo fahmaya waxa qofku qaldan fahmaya bal idinku soo celinayaa waxaa laga yaabaa qaarkiin oo badan inay fahmi waayaan waa layga codsaday proposition ma garat ma rabin inaan aniga hadda idin baro proposition waxaa laga yaabaa inaad ku wareertaan waxaan raba tartiib ma arag markaan sentence idin soo baro markaan wax idin soo bar inaan idin keenaa rabe laakiin dhowr jeer laygu soo celiyay waa layga codsaday ma garatay marka waxaan rabaa inaan idinka faa'iido as much as possible inaad idin fahamsiin karo waa isku dayaa intii tabarteed ma garatay alaa kulli preposition waa isku xire ma garatay waxbuu isku xiraa waqti iyo erayo isku xiraa ma garatay marka dhowr sentence waxaa lagu daraa nounkaa lagu daraa verbkaa lagu daraa the verb Somali verb baan leeyahay verbkaa lagu daraa waxaa lagu daraa adjectivea lagu daraa marka meel walbuu galaa ma garatay marka maxaa idhahdaa halkan hadda waxaan baranaynaa preposition of time preposition pre waxa waaye before ka hor position waa boss laakiin waa ka hormari bosska ka hormari oo kale pre waa ka hor position waa boss meel ma garatay marka of time marka waxa hadda inta badan aan ka cabiraynaa hadda direction tilmaan time waxa waaye waqti ama saacad location waa meel xaafad uu noqon karaa meel ownershipna lahaansho marka hadda waxaan kaliya baranaynaa preposition of time magara prepositionka loo isticmaalo waqtiga sanad waqti uu noqon karaa maalin habeen shalay all of that waqti waay time waay ma garatee marka inshallah let's read a little bit okay here is a list of the time معناها here
I say her. Let me just fix it, this thing here with the E. Here is, let me just fix it for you guys, sorry. Let's go back this thing here. Sorry guys, دايما مركا أخرنا sometimes wax markaan qoro wixii anoo akhrina ereygii ma ii muuqanayo marka hadda halkan here marka hore aan soo maray ma arkin ka waran marka haddaan kusoo noqday I see it marka sorry guys okay I'm kusoo celinay but inshallah halkan aad ka fahmi doontaan okay it look like her right marka aarta ka qaad wuxuu noqonayaa her but supposed to be here halkan here is a list of the time words halkan waxaa ku jira lista macnaha kuwani the time word waqtiga wordga ayaa hor ku jira oo ah time word waxa maay on qariirtina iska xiran iska ilooba kowdhe alaa kul xaga raalaal marka walaalayaal halkan so yeah marka this time the time waqtiga waxa lagu kuwan oo dhan maarta waqtiga ayaa lagu cabiraa ma fahmin oo maxay yiraahdaan lagu marka waqti la isticmaalayo waxa la isticmaalaa kuwan ayaa la isticmaalaa marka aynu aragna marka how to use it inshallah Layla is arriving on February 14 at night Layla waxay imanaysaa on February 14 at night waxay imanaysaa Layla February 14 that means sida hore idinku soo sheegay laga bilaabo inta ilaa wixii ka dambeeya waxay noqdaan oo laga gaaro preposition ayaa noqda saas ayaa loogu cabiraa markaste marka ereyga prepositionka waa kan ahaa hadhow markaad sentence baranaysan arki doontaan hadhow markaad tarkan waa subjectii hadhow main verbkii no the verbkii and main verbkii and hadhow preposition halaas qalina wada maranaysa preposition ay noqonayaan markaste saasoo kale preposition marka inta kan preposition waa kan preposition waa marka on February 14 haddii lagu daro waa inaa on ka dhigta maadaama maalinta la garanayo ay tahay waa inaad saarta laakiin haddaan la garanaynin wuxuu noqonayaa in maadaama 30 beri ay tahay in ayaa laga xisaabiyaa marka saa ogaada Layla is arriving waxay imanaysaa Layla is arriving on February 14 Layla waxay imanaysaa February 14 ayay imanaysaa ma garatay see is arriving guys or ay imanaysaa that means future waa wax dhici doona ma garatay maxaa la isticmaalayaa present continuous sometimes as a future wax dhici doon waa loo xisaabsadaa weli laakiin anaga ma aana baran ogaada Layla is coming Layla is arriving Layla waxay iman doontaa on February 14 February 14 February samaxana February right 14 at night habeennimo ayay imanaysaa habeennimo habeenkay imanayso at night waqti imanayso in habeentaa waa aan horeyno ognahay the weather is often hot hawada inta badan waa kuleel in Somalia taamil Soomaaliya dhexdeeda in March waqtiga bisha March gudaheeda magarat waa Soomaaliya waa kuleel so that wax markuu badan yahay in aad isticmaalaysa oo aan hal beri ahayn magaratay okay what else she graduated from university in 2005 that means the whole 2005 waa hal sano waa 12 bilood gudaheeda ayaa laga xisaab in haddii nala siin lahaa maalin nala siin lahaa then waxaan isticmaal lahayn at ayaan isticmaal lahayn ma garatay or on the day on isticmaal on 13 of that waqtigaas isticmaal lahayn ma garatay laakiin hadda sanadkii maadaama yir in ayaa laga xisaabinaya so waxay ku guulaystay ama ku baramoostay ama ku erigii kale waa iga dhumacaa kul xaq waxay jaamacadda ka baxday ku guulaysatay waqtigan 2015 ayay ka qalin jibisay ka dhamaysatay insha Allah Abdi usually visit Abdi inta badan wuxuu booqasho ku aadaa Soomaaliya in the summer waqtiga samarka Abdi Soomaaliya ayuu booqasho ku aadaa that means usually inta badan caadi ahaan saas ayuu soo waqtiga summer waxa ku aadaa so halkan in the summerka hal beri maaha magarat waa maalmo tiro badan waa waqti badan waa dhowr bilood waay so that means waa inaad ka cabirtaa so here to always I idin soo sheegay preposition ayana loo cabiraa marka sentence ahaan loo cabiraa but here kan ayuu ka bilowdaa magarate he got married wuxuu guursaday in March gudaheeda ayuu guursaday goormee waay maalintee waay we don't know ma garanayno maalintee ka tahay
so margin gudaheeda waa inaan dhahna in ayay noqonaysaa. It is better to get taxi. Waxaa fiican inaad it is better waxaa fiican to get taxi inaad qaadatid to get taxi daamin inaad qaadatid taxi if haddii you are out alone haddii aad kaligaa tahay out aad banaanka joogto alone kaligaa at night habeenkii. That means waxaa fiican inaad taxi qaadatid haddaad kaligaa tahay oo aad banaanka joogtid habeenkii. It's been raining since this morning. It's been raining roob since laga soo bilaabo since waqtiga laga soo bilaabo saakay ilaa iyo hadda roob ayaa da'aya ilaa saaka laga soo bilaayo roobka da'aya saaka laga soo bilaawdo ilaa daamin waqtiga qofka kula hadlay roob ayaa da'aya. It's been raining wuu da'ay saaka laga soo bilaa ilaa hadda roob ayaa da'aya. I have been living here since 2010. Halkan waxaan ku noolaa ama aan deganaa laga soo bilaabo 2010kii anigu halkan ayaan degan daamin weli ma deganahay haa waan deganaa waa saas oo kale sinis waa laga soo bilo waqtigaa lagu cayimaa waqtigaas laga soo bilaabo ilaa iyo hadda. It rain roob ayaa da'ay soo muji hadalkayga da'ay daamin wuu dhammaaday roob ayaa da'ay kuma dhahay roob ayaa da'ay daamin wuu dhammaaday roobka during waqtigaasi the night waqtiga habeenkii for 2 hours 2 saacadood labadaas saacadood markay bilaabato ilaa ka dhamaad roob ayaa da'ay. hadda ma da'ayaa maya waqtigii roobka goor hore soomayn wuu dhammaaday. That means roobkii wuu dhammaaday waa waqti lasoo dhaafay laakiin waqtigaa lagu jiray roobka labadaas saac gudaheeda oo dhan roobka u da'ayay taas ayaa laga wadaa. I stayed waan la joogay with them ayaga for 3 weeks ayaga waxaan la joogay 3 week ayaan la joogay ayaa laga wadaa ma garatay marka itiga casharka walaale intaas ayuu ku egyahay itiga casharka inaan badiyaa rab laakiin intanaab waqtigii almost 30 minutes wuu qaataan u malaynaya marka calaa kulli xaal walaal aad baad mahadsantiin waxaan mar labaad aad thank you like people commenting iyo dhaaf masha Allah all of you coming back thank you so much guys I really appreciate inshallah dadaala casharkiina wata dadkii aanan garanayn xataa cashar oo ka hooseeya ayaan usoo dirayaa luuqa iisoo sheega inshallah qofkii uu dhibayo I don't want in qofkan macnaha oo xoogaa casharka uu dhibayo maaragtaa ma rabo in aad dareento oo aniga ma ka qayb gali no hoos iisoo qor waxaad walaale casharka uu dhibaya waxaan kuu soo dirayaa wax ka fudud aad la qabsato ayaan kuu soo diray inshallah marka walaale aad baa u mahadsantiin please hadaa nagu cusubtihiin please subscribe gara inshallah walaalayaal iskana gaarsiiya marka aad iyo aad ay mahadsantihiin khayr iyo caafimaad ayaan idin rajayn iyo farxad ayaan idin rajayn inshallah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaal casharka intaas ayuu ku ekay aad iyo aad baad u mahadsantihiin please subscribe dadka nagu cusub belkana taawasa casharka saa u heshay inshallah and press the like button guys aad iyo aad idin mahadsantihiin dhammaantiin soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaa khayr iyo caafimaad baa idin wada rajaynaya dhammaantiin.